السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بو حرجيني إنad fiican tihiin maanta waxaynu bilaabi doonaa insha Allah muuqaal cusub. Muuqaalkeena cusub maanta wuxuu ku saabsan yahay course-keena inoo socday ahaa Human Anatomy and Physiology chapter-kiisii afraad baynu maanta bilaabanaa Integumentary System habdhiskeena markaa maqaarka la socod wanaagsan. Learning objectives-ka ahdaafta aynu ku baranayno waxaa ka mid ah at the end of this chapter-kani markuu dhamaado the students ardaydu should be able to inay awood u lahaadaan describe skin of the human body inay sharixi karayaan maqaarka jirka bini'aadanka, inay ka doodi karayaan qanjidhada laga helo maqaarkeena, sidoo kale inay sharixi karayaan the structure and function of hair shaqada iyo markaa waxqabadka ay tintu qabato, inay discussion ka bixin karayaan ama ka doodi karayaan wax ku saabsan markaa balnailiska ama cidiyaha markaa maqaarkeena markaa laga helo. Introduction horodhac. Your integumentary system habdhiskaaga markaa maqaarku is your body's outer layer, waa layerka ugu sarreeya ee markaa jirkaaga. Is made up of waxa uu markaa ka samaysan yahay your skin maqaar, cidiyo, timo iyo markaa qanjidho, sidoo kale markaa nerves dareemayaal on your skin markaa laga helayo markaa maqaarkaaga. Your integumentary system habdhiskaaga maqaarku act as wuxuu u dhaqmaa physical barrier, camal barrier markaa muuqda ayuu u dhaqmaa. Protecting markaa wuxuu ilaaliyaa your body jirkaaga from wuxuu ka ilaaliyaa bakteeriyada, infectionka iyo dhaawaca iyo markaa sunlight-ka cadceeda. It also sidoo kale helps wuxuu caawiyaa regulate inuu markaa maamulo ama joogteeyo your body temperature-kaaga, heerkulka markaa jirkaaga. Sidoo kale wuxuu ogolaadaa you to feel inaad dareento skin sensation, camal inuu maqaarkaagu lahaado markaa dareen lahaadana isaga ka qayb qaato oo aad dareento sida kuleylka iyo markaa qabowga inaad markaa dareento. What is the purpose of the integumentary system? Habdhiskaaga markaa maqaarku ujeedadiisu maxay tahay? Your integumentary system habdhiskaaga markaa maqaarku has many important functions, wuxuu leeyahay shaqooyin fara badan oo muhiim ah. It provides wuxuu bixiyaa physical protection, camal ilaalin muuqata isagoo markaa ka ilaalinaya hadday noqoto bakteeriyada iyo jeermiska hadday noqoto. Absorbs markaa wuxuu markaa nuugaa and helps caawiyana heal abrasion inay markaa bogsadaan dilaaci xilih markaa ku jaray iyo hada injuriska iyo dhaawacyadii kale. Sidoo kale it protect wuxuu ilaaliyaa iyo adiga ka ilaaliyaa from the sun's ultraviolet, camal adiga wuxuu maqaarkaagu ka ilaaliyaa falaraha markaa cadceedu aan sunburn iyo markaa inaad qorraxdii aad ku gubato. Sidoo kale it regulate markaa wuxuu joogteeyaa your body temperature, heerkulka jirkaaga, and allows waxa uu ogolaadaa iyo adigu to stay cool inaad xaalad qabow ku jirto mar walba, inaad xaaladaadu qabow ahaato jirkaaga guduhu ayuu markaa ogolaadaa. Sidoo kale wuxuu inaga caawiyaa you feel inaad markaa dareento heatka, kuleylka inaad dareento, qabowga inaad dareento, xitaa detect other sensation, xataa dareenadii kale inaad markaa dareemi karayso. Synthesis wuxuu markaa sameeyaa vitamin D ama making vitamin D boo dhihi karaysa, wuxuu sameeyaa vitamin D. Skin haddaynu u galno maqaar, your skin markaa maqaarkaagu is the largest waa ka ugu weyn and heaviest waana ka ugu culus organ in your body, camal jirkaaga xubnaha jirkaaga laga helo ka ugu culus uguna weyni waa maqaarkaaga. It weighs about 2.7 kilogram, miisaan ahaanna waxaa lagu cabiraa weightkiisu inuu markaa yahay 2.7 kilogram, inuu yahay 2.7 kilogram ama inuu ka badan yahayba. And is approximately qiyaastiina 2 millimeter thick weeye, qaar ahaan la eegana waa 2 millimeter weeye. waxa uu markaa u dhuuban yahay sensitive area, goobaha markaa xasaasiga sida eyelid oo kale, isha markaa dacalkeeda sare oo kale. 1 inch of your skin containing nearly 19 million cells, camal halkii inchiye kastaba oo maqaarkaaga ka mid ah waxaa laga helayaa in ku dhow 19 milyan oo markaa unugyaaya laga helayaa, marka wax aad u badan weeye. Your skin maqaarkaagu is composed of wuxuu ka kooban yahay 3 layers, 3 lakab, with nerves kuwaasoo leh markaa neerfayaal that recognize kuwaasoo aqoonsanaya different sensation, dareeno kala duwan in each layer kasta marka la joogo. camal layerada halkaa kaaga muuqda sida epidermiska, dermiska iyo hypodermisku dhammaantoodba markaa waxay leeyihiin markaa mid walba wuxuu gaar u leeyahay neerfayaal ka duwaya ka kale dareenka markaa dareemayso. camal epidermiska iyo dermisku markaa isku dareen maaha, isku nerves maaha. marka dermiska la joogay iyo marka hypodermiska la joogana iyaguna markaa isku dareen maaha. Epidermiska haddaan u nimaano the word epidermis, ereyga epidermis combines waa laba eray oo isku jira,
kuwaasoo ka soo jeeda the ancient Greek erey markaa Greek weeye. Prefixka ibi ereyga ibi horgalaha ibi which means macnihiisu waxa weeye waa outer weeye waa xagga sare. And the ancient Greek word derma ereyga kale Greek ee derma loo yaqaanana which means macnihiisu waxa weeye waa skin waa maqaar. So sidaa daraadeed the word translate ereyga waxaan ku turjumaynaa to outer skin inuu yahay maqaarka xaggiisa sare inuu yahay. The top layer of skin maqaarkaaga dushiisa sare weeye epidermisku. This is the part waana qaybta of your skin maqaarkaaga that you can see aad arki karayso and touch taabana karaysana. Camal waa taaban karaysa waana arki karaysa waa maqaarkaagan sare adiga hadda ku muuqdo markaad muuqaalka daawanayso. It's made up of 3 types of cells. Wuxuu markaa ka samaysan yahay 3 nooc oo markaa unugyo ah buu ka samaysan yahay. Kuwa la yiraahdo melanocytes oo melaninta soo saaro midabeeyaha maqaarka ah. Keratinocytes oo ah kuwa markaa borotiinta adag soo saara. Aan Langerhans iyo kuwa markaa difaaca. It gives wuxuu markaa siiyaa your skin maqaarkaaga itis colorkiisa haday noqoto midabkiisa and provide sidoo kale wuxuu bixiyaa waterproof barrier. Camal shaqooyinka ugu caansan waxa kamid ah inuu midabna siiyo noqdana wax markaa barrier u ah waterproof biyaha celinaya. The epidermiskaagu is the thinnest layer waa layerka ugu dhuuban of the skin maqaarkaaga laakiin it responsible wuxuu mas'uul ka yahay for protecting you from the outer environment in deegaankaaga gudaha uu markaa ilaaliyo kana ilaaliyo markaa dhibaatooyinka iyo waxyaalaha markaa banaanka kaga imaanaya. And it's composed waxa uu markaa ka samaysan yahay isaga laftigiisu of a 5 layer of its own camal 5 lakab buu ka samaysan yahay isaga laftigiisu. What are the layers of the epidermis? Layers epidermisku maxay yihiin? The layers of the epidermisku in order are waa kuwan soo socda way. Layerka koobaad waxa la yiraahdaa stratum basal waana layerka ugu hooseeya inuu ka soo bilaabana marka 5 layer loo yimaado 5 layer markii ku hadlano layerka ugu hooseeya waxa la yiraahdaa stratum basal. Waa the deepest layer waa layerka ugu hooseeya of your epidermiskaaga. New skin cells develop in this layer. Salalka maqaarka cusubna halkaas ay ka soo sameysmaan. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay keratinocyte salalkii markaa soo saarayay keratinta iyo markaa stem cellska salalka markaa jiridooda iyo meesha ka soo bilaabanayeen stemkooda. Which produce kuwaas oo soo saara the borotin keratin camal borotinta lagu magacaabo keratinta la yiraahdo ee markaa ka samaysan cidiyaheenu timaheenu maqaarkeenu ka samaysan yahay iyaga markaa soo saara. meesha laga soo saarana waa layerka hoose loo yaqaan stratum basal. Keratintu markaa waxay naga caawisaa inay samayso timaheena cidiyaheena iyo markaa your skin's outer layer iyo lakabka markaa ugu sareeya markaa maqaarkeena. Which protects you from the harsh environment taasoo markaa ka ilaalinaysa harsh environment-ga deegaanka markaa adag. Idaalso sidoo kale contain waxa uu ka kooban yahay melanocyteski salalkii markaa soo saarayay melaninta which are responsible kuna waxa melanocyteska laga hadlayaa waxay mas'uul ka yihiin for producing inay soo saaraan melaninta inay soo saaraan waa pigmentation of skin kuwii markaa maqaarka midabeynayay inay markaa soo saaraan. Which prefers kuwaasoo markaa bixiya the pigment of your epidermiskaaga camal midabka uu yeelanayo maqaarkaagan lakabkaagan sare epidermisku waa inaad cadaan noqoto inaad madow noqoto waxa markaa mas'uul ka ah melanocyteskan markaa melaninta soo saaraya ayaa markaa mas'uul ka ah. lakabka labaad waxa la yiraahdaa stratum spinosum. stratum spinosumku wuxuu u dhaxeeyaa stratum basalka hadda ka soo baxnay iyo granuloosum layer iyo lakabka ku xigo granuloosum la yiraahdo aanu gali doono. af Soomaaliga maadaama uu iska buur yahay stratum spinosum strata it means waa layer way camal erga strata hadad maqashaan waa layer marka stratum spinosum waa the stratum spinosum wuxuu u dhaxeeyaa stratum basalka iyo markaa granuloosumka. This layer can mostly consist wuxuu ka kooban yahay of keratinocytes buu ka kooban yahay. Keratinocytes ayuu ka kooban yahay. Sidoo kale spinosumkana wuxuu inaga caawiyaa make your skin inuu maqaarkaaga ka dhigo mid markaa flexible ah strong ah mid xooggan inuu markaa ka dhigo. layerka saddexaad waxa la yiraahdaa stratum granuloosum baa la yiraahdaa. Strata it means waa layer. The stratum granuloosum is between wuxuu u dhaxeeyaa the stratum spinosum kion hadda ka soo baxnay iyo stratum liquidium kion hadda gali doono. These granules it mean erga granula waxa la yiraahdaa inta badan miiqiyo ayaa la yiraahdaa miiqiyo.
These granules miiqyadaasi contain waxay ku dhex jira oo ka kooban yihiin lipids dufan which help dufankaasoo ka caawiya to form inuu sameeyo waterproof barrier camalu biyihii maqaarka marka u qabto that functions shaqadiisuna waxa weeye to prevent inuu ka hortago fluid loss-ka dareeraha marka ka lumaya from the body jirkaaga camal stratum granuloosum wax kala qaban maayo fat buu ka kooban yahay maadaama uu lipidskii dufan ka kooban yahay dufankaasi wuxuu ka caawiyaa inuu dufankaasi noqdo mid marka biyaha maqaarka u qabanaya shaqadiisuna ay tahay marka inuu ka hortago dareeraha marka ka baxaya marka jirkaaga layerka afraadna waxa la dhahdaa waa stratum liquidium stratum liquidiumku is a smooth waa layer smooth ah seemingly wuxuu u muuqdaa translucent layer balada waa layerkii wax ka gudbayeen of the epidermiskaaga marka loo yimaado locator ahaan ama goob ahaan wuxuu dhacaa just above waxa ka yara sareeya the stratum granuloosum kan hadda ka soo baxnay baa ka sareeya aan bilow waxaana ka hooseeya stratum corneum kan hadda gali doono this thin layer of cells is found only in the thick skin of the palms and soles amal unug ahaan waa layerka marka ugu dhuuban weeye meesha kaliya ay ku adag yihiin waxa weeye waa palms skin iyo soles skin ku adag yihiin its a main function shaqadiisuna waxa weeye to reduce inuu yareeyo friction inuu yareeyo maadaama uu dhaxeeyo stratum corneum-ka iyo stratum granuloosum-ka aan hadda ka soo baxnay labada layer maadaama uu dhaxeeyo wuxuu yahay translucent buu yahay layer wax ka gudbi karayaan friction kana ka ilaalinaya ayuu marka uu yahay meelaha uu ku adag yahayna waa palmiskeena calacalaheena iyo marka kuwa marka lugaha cadcad meelahaasna aad buu ugu adag yahay inta kale marka jirka intiisa kale marka la eegana uu marka uu dhuuban yahay stratum corneum banu galnay stratum corneum waa layerka shanaad weeye stratum corneum-ku waa the top layer of the epidermis waana lakabka ugu sareeya marka la eego epidermiskan camal lakabyadu lahaa epidermiska gaarka u lahaa shantii lakab waxa ugu hooseeya stratum basalkeenu ka nimi waxa ugu sareeya waa stratum corneum-ka stratum corneum-ku is the top layer waa layerka ugu sareeya of the epidermiska marka la eego this is the layerkani you see wad arki karaysa camal waa lakabka ugu sareeya waa ka ku muuqda aad indhahaaga haddaba aad ku eegi karayso in the stratum corneum-ka marka la joogo keratinocytes-kii aad taqaanay become waxay noqonayaan corneocyte bisu bedelayaan camal keratinocyte-kii noolaa aad taqaanay waxay noqonayaan kuwa marka corneocyte la corneocytes-ku are strong waa kuwa xoogan waana dead keratinocyte balonay camal dad tiraahdo corneocyte-ku waa maxay corneocyte hadii lagu yiraahdo waa dead keratin waa keratin dhimatay that protected taasoo ka ilaalinaysa iyo adiga from harm dhibaatada including dhibaatada waxa kamid ah abrasions-kii dilaacyadii light-ka iftiinka kulaylka iyo xanuunada marka ka ilaalinaya lakabyadu marka waa kuwa weyn aad baad u mahadsantihiin halkaas aynu iskaga joojin doonaa insha Allah lesson-keena koobaad intaynu lesson-ka labaad ku kulmayno waxaanu idinkaga tagayaa insha Allah salaanteena qaaliga islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh